boosaaso muddo kadib oo isha lagu wada hayay xalay ayay soo saareen isimada gobolka bari ee Puntland go'aan ku aadan dhacdooyinkii ka dhacay magaaladaasi iyo xalka BSF iyo xukuumadda Puntland lagu soo afjari lahaa xiisadooda balse taasi ma farxad gelin xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni durbadiiba waxay mar kale si cari leh uga jawaabtay hadalka isimada Puntland xukuumadda Deni miyay suurtagal tahay in mar kale Boosaaso ay gasho dagaal maadaama hore hadalka isimada Puntland aysan u dhaqan gelin xukuumadda Deni ay sababtay dagaalkii ka dhacay Boosaaso xaaladda guud ee Boosaaso iyo sidoo kale xiisadda cusub ee ka soo cusboonaatay ayaan warbixintan ku dul istaagi doonaa fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro si share garay oo saaxiibadaada kale la sii wadaag halkan oo warqad news tv-na ku soo biir youtube-kana sidoo kale booqo si aad u hesho xogaha iyo macluumaadka aynu ku baahino wahagaag haddii aynu ku bilowno isimada dhaqanka ee Puntland ayaa maalmahan u fadhiya xalka xiisadii magaalada Boosaaso ee u dhaxayda xukuumadda Deni iyo taliska ciidanka BSF oo hogaaminaya Maxamed Cusmaan Diyaano waxayna soo saareen 6 qodob oo arkaan in arrintaasi xal looga gaari karo si san mar dambe u soo noqon isimada ayaa go'aamiyeen hay'adda BSF ay sideeda si ahaato oo hogaankooda loo daayo Maxamed Cusmaan Diyaano agaasimihii hore xilka uga qaaday Saciid Cabdullaahi Deni ee sababtay xiisadii ka dhacday magaalada Boosaaso waxaana Maxamed Cusmaan Diyaano lagu kordhiyay inuu dib isugu raadiyo ciidankii ku kala jabay dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso sidoo kale isimada waxay soo jeediyeen in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale agaasima Maxamed Cusmaan Diyaano loo dhigo gogol dib u heshiisiineed si loo soo afjaro khilaafka ka taagnaa Boosaaso qodobka saddexaad waxay isimada ku soo go'aamiyeen in dhibka ka dhacay magaalada Boosaaso lagu dagaalamay ee dagaalada qasaarada geystay ee ka dhaceen loo bandhigo shariicada Islaamka laguna dhaqmo xukunkeeda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari dhankooda waxa hore ugu sugnaa madaxdii hore ee Puntland iyo mas'uuliyiin hore dawladda federaalka ee Soomaaliya xilal kala duwan oo soo qabtay u jooga xalinta xiisadda BSF iyo xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni hadalka isimada Puntland xalay ka soo baxay dhabarjabo weyn ku noqda xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni durbadiiba waxay xukuumadda uga jawaabtay hadal carale iyagoona ku sheegay isimada hadalkooda mid ka baxsan dawladnimada isla markaana horay hadalladii uga soo baxay ay keeneen dagaaladii ka dhacay Boosaaso oo guul daraystay waa siday sheegeen wasiirka maaliyadda Puntland ee xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in isimada hadalkooda aysan ahayn mid dhexdhexaad loona baahan yahay in lagu jaangooyo qodobada ka soo baxay isimada dawladna wanaaga iyo sida xiisadda mar kale u soo noqon lahayn xogta ayna helnay ayaa sheegaysa in Saciid Cabdullaahi Deni maanta uu ku wajahnaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari kaas oo baajisay hadalka ka soo baxay isimada Puntland oo aad uga careysiya xukuumadda Deni sidoo kale isimada Puntland waxay xukuumadda Puntland u soo jeediyeen in laga laabto heshiiska ay la gashay shirkadda DP World oo Imaaraadka laga leeyahay maamusha dekedda magaalada Boosaaso iyagoona sheegay in 5 sano ee la soo dhaafay gacanta ku haysa dekeddaasi shirkaddaas aysan qaban shaqadii loo baahnaa isimada ayaa sidoo kale go'aamiyay in 17% dakhliga dekedda loo qoondeeyo horumarinta magaalada Boosaaso dhaqaalahaas waxay si wada jir gacanta ugu hayn doona isimada dhaqanka iyo guddi horumarinta magaalada loo sameyn doono kuwaas oo noqonaya guddi aamina sida ay sheegeen bayaanka ka soo baxay isimada maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Cabdiraxmaan Faroole iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo mas'uuliyiin kale ayaa magaalada Boosaaso dhankooda u jooga xalinta xiisadda Saciid Cabdullaahi Deni iyo ilma Diyaano si aysan mar kale saameyn xooggan magaaladaas ugu yeelan lahayn oo horey dagaal qasaare geystay uga dhaceen Saciid Cabdullaahi Deni ayaa horay dagaalkii Boosaaso kadib khudbada u jeediyay ku sheegay in hadalkaas oo ka soo baxay isimada Puntland ee xukuumaddiisa dhaqan gali doonto isla markaana ay ajiibi doonto si mar kale Boosaaso aysan dagaal uga dhici lahayn balse waxa moodaa in durbadiiba hadalkani ay ka jawaabeen isimada qaar ka mid ah golahiisa wasiirada kuna tilmaama hadalka ka soo baxay isimada Puntland mid nasiib darro ah xaaladda Boosaaso ayaa jawi ka duwan ah maanta kuwii hore maadaama mar kale cabsi laga qabo inuu dagaal ka dhaco u dhaxeeyo ciidamada uu ka amar qaatay Saciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale ciidanka BSF oo wali isku hor fadhiya magaaladaas balse xiriyahoodii dib ugu kala noqday madaxdii hore ee Puntland ayaa dhankooda la sheegaya inay soo saari doonaan mowqifkooda ku aadan xalintii xiisadihii Boosaaso ee waayihii dambeba halka u joogeen sida ay la tahay dhankooda hadalka isimada Puntland ayaa xukuumadda Deni dhabarjabo weyn ku noqday iyagoona meesha ka saaray agaasimihii Saciid Cabdullaahi Deni u magacaabay BSF oo xiisadda Boosaaso ka taagan sababay in ka badan 6 isimada Puntland ayaana ku saxeexnaa warqadan xalay ka soo baxday ee isimada gobolka bari ee maamulka Puntland ee ku aadan xiisadda magaalada Boosaaso waayihii dambeba isha lagu wada hayay
nuxurka ka soo bixi doona wadahadalada iyo sidoo kale kulamadii u socday waxgaradka Boosaaso iyo sidoo kale dhinacyadii halka ku dagaalamay. madaxweynaha Puntland oo wali ku maqan magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaana la rajeynayaa in dhawaan uu dib ugu noqdo deegaanada maamulkaasi. lama oga tilaabada xigi doonto Saciid Cabdullaahi Deni qaadi doona maadaama qaar kamid ah xukuumaddiisa ay ka hortimid go'aanka isimada Puntland. isimada waxay u arkaan qodobada ay soo saareen xalka kaliya ee wax looga qaban karo xiisada ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. wixii warar ee ku soo kordha saaxiibayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkani warbixinadeena dambe. halkani waa Warqad News TV. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo page-keena follow garay, YouTube-keena sidoo kale booqo oo subscribe ka saar. waxaan markasta inaga go'an in aan soo gudbino xogihii ugu dambeeyay dalka iyo dhacdooyinka caalamka. mahadsanidin.